بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر جوبا انستو بروفيشنالز يوتيوب channel. ومركل iyo koorsadeenay 4000 Essential English Words kuwaasoo ku baranay afarta kun ee u muhiimsan Ingiriiska oo lagu gelinayo jumlado iyo waliba tusaalayaal. Waxaan la socodsiinaa Cabdisaaq Maxamed haddii aad rabto for speaking practice in luqadda Ingiriiska si gaar ah ugu hadla ama si gaar lagu baro fadlan igala soo xiriir numberkaas. Haddaba casharkeena maanta waa 4000 Essential English Words Practice Book 1 waxaan maraynaa lesson 6 waa casharka lixaad wuxuuna ku yaalaa page-ka 12 ee buugga 4000 Essential English Words oo qoray Paul Nation. buuggan iyo waliba asagoo ay akhrinayaan ay ku dhawaaqayaan dad cadaan ah luqadda u dhashay waxaad ka heli kartaa Telegram groupka aan linkiga video hoostiisa kugu siiyay ama Telegram ka gasho Juba Institute of Professionals garaac saadide waad helaysaa. haddaba maanta waa cashirkii lixaad wuxuuna ka bilaabanayaa kelimadda konton iyo koowaad. taasi micnaheedu waxa weeyaan hore waxaan usoo qaadanay 50 words kuwaasoo kusoo kala dhignay 5 videos 5 video baan kusoo dhignay sababtoo ah each video 10 words ayaan ku dubnaa. ereyga marka koowaad ee cashirkeen lixaad ee maanta waxa weeyaan instead micnaheedu waxa weeyaan halkii ama bedelkii ereyga waa halkii ama bedelkii ayuu noqonayaa. instead halkii ama bedelkii ayuu noqonayaa. haddaba ereyga wuxuu noqonayaa instead waa halkii ama bedelkii, yani bedelkii halkii aad waxaa ka samayn lahayd ama halkii aad saa ka heli ama bedelkii saa aad samayn lahayd oo kale wey. marka instead means in place of. instead means waxay ka dhigan tahay in place of taa bedelkeedi. tusaale waa kana he ate the carrot instead of the ice cream. he ate wuxuu cunay baa layidhi carrot uu cunay. ate waa eat bastigeedi instead of the ice cream bedelkii ice cream. instead of ice cream bedelka ice cream. marka ereyga instead waa halkii ama bedelkii oo kale wey. ereyga konton waxa weeyaan library. okay, ereyga hore horta wuxuu ahaa adverb adverbna waxaa la dhahaa waa ereyada sheego ama sharaxo habka oo ficilku ama sifadu ay tahay. library waa maktabad ama library. waa meesha buugaagta ay yalaan loo akhristo. waa noun iyadoo magac. a library is a place where you go to read books. a library is a place where you go to read books. library is a place where you go waa meesha aad aadaysaa to read books inaad buugag soo akhriso. tusaalaha waa kana the library at the school is full of books. the library-ga at the school is full of books. waxaa ka buuxo buugag ayaa ka buuxa. ereyga konton iyo saddexaad waxa weeyaan planet waa meere sada socotaan waxaa jira meerayaashaasna waxaa kamid ah dhulka aan ku noolahay wuxuu kamid yahay meerayaasha. a planet is a large round thing. waa wax weyn oo wareegsan in space oo ku yaalo spaceka waxaa lahaa waa ereyga space horta meel banaan baa ereyga macnihiisa laakiin hadda waxaa lahaa spaceka waa hawadaas sare. space waxaa lahaa hawadaas sare ayaa waxaa lahaa space. a planet is a large round thing. waa shay large weyn round wareegsan in space oo ku yaalo hawadaas sare ama meesha hawada aadka u sareysa ku yaalo. tusaale ku siiye Saturn meeraha loo yaqaano Saturn is the planet waa meeraha with a ring around it. ring wuxuu leeyahay ring wax ku wareegsan uu leeyahay around it. marka erga ring asalkiisa waxa weeyaan farantigana waa la dhahaa laakiin hadda ring waxa wareegsan bada ring waxa wareegsan. Saturn is the planet waa meeraha with a ring around it ee uu ku wareegsan yahay waxa loo yaqaano waxa wareegsan wax weyn wax saa ugu wareegsan weey. marka ereyga konton iyo afraad waa report. ereyga report waa
warbixin warbixin wey warbixin marka report hadda waa noun verbna sidoo kale sidan ay ku tahay verbkeedana waa report verbkeedana waa report sidoo kale nounkeedana waa report. A report is something students write for school. A report warbixinta is something students write waa wax ardaydu qoraan for schoolka yaa marmar waxa lagu dhihi waxaas warbixinta soo qor. Tusaale Karen had trouble. Karen waxay ku dhibanayd. Karen had trouble. waxay ku dhibtootay oo ku dhibanayd writing inay qorto her report warbixinteeda. erey kale waxa weeyaan ee kontoniyashanaad oo kamid ah ereyada imtixaanaha several waxa dhowr ah several waa dhowr yani waa wax labana ka badan aana sii badnayn. Several is more than two laba way ka badan tahay but not many lakin aad uma badan. Shalay waxa yiri he had to read several books. He had to read waxa uu ku qasbanaa inuu akhriyo several books dhowr book for classes marka he had to I have to he had to wuxuu ku qasbanaa way sababta waa phrase oo si fiican u barataan I have he has hadda detail waxa la he has to wuxuu ku qasbaya he had to wuxuu ku qasbanaa he had to read several books dhowr book ayuu ku qasbanaa inuu akhriyo for class ereyga konton lixada marayna waxaan solve waa xalin waa verb solve waa xalin waa verb waxa kaloo dhihi karaa nounkeedana waa solution ayaa oo xal ah solution way nounkeeda. To solve something wax ina xaliso is to find an answer to it wa ina jawaab hesho is to find an answer to it marka solve waa xalin to solve something is to find an answer to it wixii marka jawaab u hesho yaa waxa la solve. And all the students ardaydii oo dhan could easily solve si fudud ayay u xalin kareen the math problemki ama problemka xisaabta loo dhigo math problem waxa la xisaabaadka markii uu si problem ama wax ka soo shaqeynaysa badanaa problemka oo sheekaan u qoran way ereyga konton iyo toddobaad kamid ah taxanayaasha wax kale suddenly waa adverb aydan waxay sheegaysaa wax u dhaceen macnaheedu waxa laga wadaa si degdeg ah oo lama filaan ah suddenly hadan moosho suddenly waa si degdeg ah oo lama filaan ah si degdeg ah oo lama filaan suddenly if something happens suddenly shay hadduu si suddenly u dhaco it happens quickly waa kana si degdeg u dhacay unexpectedly iyo si lama filaan halka waxaa ugu jeedaa marka ereyga suddenly labada macno xubaasan yahay quickly si degdeg ah unexpectedly iyo si lama filaan labadaas macno xambaarsan wey. tusaale waxay yidhi I was suddenly surprised si degdeg ah oo lama filaan ayaa waxa iga yaabiyey by the cake my friends brought me ay saaxiibaday ii keeneen by the cake my friends brought me cake ay saaxiibaday ii keeneen erga brought waa pastiga bring pastigeeda waa erga kale oo barayna waxa weeyaan suppose okay waxaan maraynay erga suppose waa verb macnaheedu waxay ka noqotaa malayn wax inaad malayso ama ka soo qaad markaad kule ka soo qaad let us say ama suppose to suppose is to guess waa inaad wax qiyaasto or assume ama ka soo qaad yani ka soo qaad let us assume ama ka soo qaadno that you have won $1 million inaad ku guulayso $1 million kale marka suppose waa malayn ama marka uu waxaas sidaas oo ka soo qaad yani mesela masaa ka soo qaado I suppose waxaan u malaynayaa ama aan filayaa ama ay tahay I should go home now badana waa erey idab leh oo waxa gurigan aadaya badana ma dhahan waa xogaa dad buu ka tagayaa si idab loo dhahdaa marka I suppose I should go home now waxaan filayaa inay tahay inaan xaafadda aado I suppose I should go home now marka saas oo kale erga suppose na waa nooca okay erga konton iyo sagaalaad waxa weeyaan universe waa caalamka ama koonka universe waa caalamka ama
koonka. The universe is noun or supposed object. waxyaabaha la yaqaano ama la qiyaasayo in space ku yaalo hawada sare. The universe is so large. Universe koonku aad buu u yahay that it cannot be measured. lama cabiri karo. It cannot be measured. lama cabiri karo. saas noqonaysa. marka universe ereyga lixdanaad waxa weeyaan view waa eegid ama fiirin. view waa eegid ama fiirin. aragtay hadda waa aragtay markaad YouTube ka daawata waxa la soo qorayaa views macnaheedu daawaday wey. marka by the way ereyga macnaheedu waa marka ereyga waa view eegid ama waxay kala noqotaa aragtina way noqotaa. aragti view aragtina way noqotaa. To view is to look at something. waa inaad wax fiiriso. to view waxa la macnaha look at. To view means to look at something. inaad wax fiiriso wey. tusaale Michael waa nin magaci. Michael likes to view himself. Michael wuxuu jecel yahay inuu isku fiiriyo in the mirror muraayada. Michael wuxuu jecel yahay to view himself inuu isagu isfiiriyo in the mirror muraayada inuu iska fiiriyo. aad iyo aad baad umahadsantihiin. casharkeena maanta halkaas ayuu ku dhamaaday. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad casharada si taxana ugu taxan doontaan. maalin kasta waan soo geliyana casharada waa taxane. fadlan YouTube-kan subscribe saar, like saar, si mataqaanaa share na dheh. waxaan arkay YouTube-kayga dadka daawado ee aan subscribe-ka saarin ayaa badan. saas daraadeed fadlan haddaad daawatay subscribe qabo si ay dadka kale u arkaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.